ma dhacdaa adigoo keligaa meel fadhiya ama wax aad xasuusatay ama wax dhacay oo aad ka cabsanayso inay dhacaan in aad dareento emotion ama dareen xanuun kugu keena ama laga yaabo inuu fakarkaagu ama wadnahaagu ama neeftaadu isbedesho haddaba ibnu aadanku waxa uu la mid yahay ama aad tusaale fiican uga qaadan kartaa in aad bad marayso badda aad marayso biyo waad soo dhaaftay biyana waad dul taagan tahay biyana way kugu soo socdaan noloshu waa saddexdaas qaybood waa nolol aad ka soo gudubtay iyo nolol aad taagan tahay iyo nolol aad ku sii socoto oodan ogeyn inta aad ka gaari karto waxa feelingkaas sadnesska keena ama feelingkaa xanuunka keena ma ahan inta badan meesha aad taagan tahay nolosha waa cabsida aad ka qabto ama ma aragtay shalayga aad ka qabto wax kugu dhacay ama waxaad ka walwalsan tahay haddaba the only way oo stresska ama dareenkaaga loo controlo waa inaadan midna yeelin oo aad dhahdo momentigan hadda aan noolahay maxaa nolosha ka qaban karaa maxaase hore uga socon karaa